dowladda Itoobiya ayaa markii ugu horeysay ku dhiiratay inay si shaacsan u sheegto inay aqoonsanayso Somaliland xilli uu socdo qorshaha lagu dhaqangelinayo heshiiskii Addis Ababa. wasiir dowlaha wasaaradda Itoobiya oo qoraal soo dhigay bartiisa Twitter-ka ayaa waxa uu shaaciyay in Itoobiya ay noqon doonto dalkii ugu horeeyay ee aqoonsi siiya maamulka Somaliland. Itoobiya waxa ay noqon doontaa dalkii ugu horeeyay ee aqoonsi siiya Somaliland, waxaana xiga inaan yeelano iskaashi dhaqaale mid military, ayuu yiri wasiir dowlaha wasaaradda warshadaha Itoobiya. Somaliland ayaana dhawaan calaamadeysay dhulbadeedka ay siinayso Itoobiya, iyadoo madaxweyne Muuse Biixi Cabdi uu sheegay in dhulxeebaadkaasi oo dhan 20 kiiloomitir uu teedsanaan doono Lughaye ilaa Bulhar, halkaasi oo Itoobiya ay ka dhisan doonto saldhig ciidamada badda. Madaxweynaha Somaliland ayaa sheegay in baahida weyn ay u qabaan aqoonsi ay ku qasabtay in dhulkaasi ay bixiyaan. waxaan u halgamaynaa sidii aan u heli lahayn madax banaanideena sida dalalka kale ee qaaradda ay sameeyeen, ayuu yiri madaxweyne Muuse Biixi Cabdi. kaligii taliska Somaliland wuxuu intaasi ku daray waxa ay u baahan yihiin bad, aniguna waxaan u baahanahay aqoonsi, diyaar ayay naga tahay haddii aan nahnay reer Somaliland, ayuu yiri kaligii taliska Somaliland Muuse Biixi Cabdi. arrimahan ayaa imaanaya xilli labada dhinac ay weli diyaarinayaan heshiiska rasmiga ah ee Itoobiya iyo sidoo kale Somaliland ee kala saxiixdeen ee ah in qayb ka mid ah badda Soomaaliya Itoobiya lagu wareejiyo, isla markaana Somaliland ay hesho aqoonsi. xitaa haddii Itoobiya ay aqoonsato Somaliland, lama mid ahaan dalalka kale ee qaaradda ay ku dayan doonaan. dalal badan oo caalamka ka mid ah ayaa taageero buuxda u muujiyay dowladda federaalka Soomaaliya oo 6 Juun xubin aan joogto ahayn ka noqotay golaha ammaanka ee qaramada midoobay. dowladda federaalka Soomaaliya ayaana meel banaan ka istaagtay heshiiska Itoobiya iyo Addis Ababa, kaasoo ahaa in Itoobiya loo saxiixo qayb ka mid ah badda Soomaaliya. Somaliland ayaana markaan doonaysa inay aqoonsi buuxda ka hesho dowladda Itoobiya, waxayna diyaarisay dhul xeebeedka hoos tagaya Lughaye iyo sidoo kale Bulhar. dowladda federaalka Soomaaliya ayaa sidoo kale heshiis difaac la gashay Turkiga, kaasoo dhigaya in Ankara ay ka ilaaliso cid kasta oo ku soo xadgudubta madax banaanida iyo qarannimada Soomaaliyeed. dowladaha Turkiga iyo Soomaaliya heshiiska difaaca ay galeen ayaa ka dhigan in cid kasta ee ku soo xadgudubta madax banaanida Soomaaliya ee Turkiga si toos ah u wajahi doonto. waad ku mahadsantahay daawaday, haddii aad halkaan la soo gaartay waxaan kaa codsanayaa inaad muuqaalka like saarto, siina share gareyso, boggaraas falow tiraado saaxiibadaadana la wadaagto muuqaalkan. mahadsanid.